bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa bartaana ku leenahay youtube-ka janalka xulka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida kaga hayna qodobada daawan doontaan maanta kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo qasrigiisa uu ku leeyahay magaalada Garowe ku qaabeeyay xildhibaanadii shalayta kusoo baxay doorashada ka dhacday magaalada Garowe ay soo gudbin doona doorashada ka socota magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland oo heer gabagaba ah maraysa iyada oo soo baxeen kuraasta qaar waa soo gudbin doona kuraastaasi xildhibaanadii kusoo baxay sidoo kale waxaa daawan doontaan maamulka koonfur galbeed oo soo saaray jadwalka doorashada 5 kursi oo kamid ah golaha shacabka oo deegaan doorashadu ay tahay maamulkaas koonfur galbeed Umar Cabdirashiid oo ka hadlay doorashadii shalayta ka dhacday magaalada Garowe isagoo oo sheegay doorashadaas inay ahayd mid baalmarsan hanaanka doorashooyinka ay soo gudbin doona sidoo kale ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug oo isgarba socdana waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada Xudur ee gobolka Boqol halkaas oo ay dhismo ku leeyihiin al-shabaab qodobadaasi wixii lagu soo kordhay ku faaqiidi doona saaxiibayaal muuqaalkan inta haddii ay tahay daawada markaad ugu horeyso aad soo boqotay fadlan muuqaalkan la galo asxaabtaada share u dheh muuqaalkan sidoo kale subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halka mar walba aan ku soo daabacno ogeysiyo sidoo kale waqtiga salaada haddii ay tahay fadlan soo duka salaada oo dib ugu soo laabo daawashada muuqaalkan mahadsanid ayna ku bilowno markan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qarsigiisa madaxtooyada ee Puntland ku soo dhaweeyay xildhibaano cusub oo shalay loo doortay inay ka mid noqdaan xildhibaanada ku metelaya golaha shacabka maamulka Puntland madaxweynaha ayaa u hambalyeeyay xildhibaanada cusub waxaana uu rajeeyay in uu Allah u fududeeyo mas'uuliyad culus oo markaasi loo dhiibay Puntland ayaa waxa ay shalay ku qabatay 5 kursi oo ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashadu ay tahay maamulka Puntland magaalada Garowe kuwaasi oo shalay halkaas lagu doortay iyadoo oo iminka ay wajahayso cabasho xooggan oo kaga imaanaysa siyaasiyiinta maamulkaasi ka soo jeeda kuwaasi oo sheegaya doorashada shalayta ka dhacday magaalada Garowe in aan loo marin hanaanka doorashooyinka loo asteeyay dhinaca kalena haddii aynu eegno doorashooyinka ka socda magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulkaasi Jubbaland ayaa waxa ay marayaan heer gabagaba ah iyadoo oo doortay dhowr kursi oo markaasi ka mid noqonaya golaha shacabka kursigii ugu dambeeyay ee ka soo baxay halkaasi ayaa waxa ku soo baxay Cabdinuur Cali Aadan kursigaasi oo tiriskiisu uu yahay hob 028 kadib markii uu ka tanaasulay musharaxii la tartamayay Axmed Cabdi Maxamed ergada kursiga hob 028 ayaa cod gacanta ugu codeysay kadib markii uu ka tanaasulay musharaxii la tartamayay Cabdinuur Cali Aadan waxaana u dhawaaqay natiijada kursigaasi gudoomiyaha hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan ayaa helay 89 cod ma jiraan wax ka aamusay mise diiday codadka ma jiraan wax diiday ama ka aamusay waxa uu hadda ka tirsan yahay baarlamaanka golaha shacabka ee ku metelaya maamulka Jubbaland kursigan maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa horay waxaa 8 sano ugu fadhiyay Cabdullaahi Aadan shaacirkaasi oo 8 sano ee la soo dhaafay kursigaasi ku fadhiyay doorashooyinka ka socda maamulka Jubbaland ayaa ku guda jirnay marna kale wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubbaland xildhibaan Xabaas Cali Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga tiriskiisu uu yahay 111 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana uu helay 79 halka Aadan Mursal Cadow oo la tartamay uu helay 17 cod ilaa haatan doorashada golaha shacabka ee ka socota magaalada Kismaayo ayaa halkaasi si dardar leh uga socota iyadoo ay soo baxayaan kuraas kale oo markaasi ka mid noqonaya golaha shacabka kuwaasi oo deegaan doorashadu ay tahay maamulka Jubbaland isla markaana Jubbaland ku metelaya golaha shacabka dhanka kale guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta soo saaray jadwalka doorashada 5 kursi oo xalay la shaaciyay jadwalkooda 5 kursi ayaa waxaa ku tartami doono xildhibaano 40 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay kuwa iminka inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha shacabka qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa waxaa lagu sheegay 24 bishan oo ku beegan maalinta berita ah in ay bilaaban doonto diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada halka 26 bishan ay qaban doonaan tababarka guddiga iyo gudbinta ergooyinka sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in 27 bishan ay bilaabi doonaan diiwaangelinta ergada iyo tababarka ergada sidoo kale 29 bishan Janaayo in ay qaban doonaan diiwaangelinta qabashada araajida iyo lacagta hubista musharaxiinta isla markaana 30 bisha la qaban doono doorashada 5 kursi ee iminka ay shaacisay maamulkaasi koonfur galbeed kuraasta 5 ah ee maamulka koonfur galbeed ay shaacisay maanta ayaa waxa ay kala yihiin hob 188 oo ku fadhiyo Aadan Ibraahim Dayow hob 185 oo ku fadhiyo Cali Aadan Xuseen hob 175 oo ku fadhiyo Axmed Xaaji Maxamed Tayow hob 159 oo ku fadhiyo Xasan Ibraahim Maxamed hob 177 oo ku fadhiyo Ibraahim Isaaq Yadow dowladda maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu noqonayaa maamulka
ugu badan ee doortay kuraasta golaha shacabka. sidoo kale maamulada ka jira dalka ayaa iminka waxa ay wadaan qaabkii loo dadejin lahaa doorashada golaha shacabka, kuwaasi oo iminka u muuqda in ay dardar ku socdaan. sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay muqdisho ku gaareen in aysan dhaafin doorashada golaha shacabka 25 bisha Febraayo ee bisha fooda inaga soo haysa. dhanka kalena saaxiibayaal, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, ayaa qoraal bartiisa Twitterka uu soo dhigay waxa uu su'aal geliyay doorashadii golaha shacabka ee shalay lagu qabtay magaalada Garowe. qoraalkiisaas ayaa waxa uu haddii doorasho lagu qabtay xero ciidan, waa maxay khatarta ah in fiid ay si cad u wajahdo sharci darradaas? ayaan kula xisaabtamaynaa liiska dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee muuqda mid aan waa sida xaqiiqda ah ee u muuqato wax argagax badan. wixii shalay horey aan ugu baqaynay ayaa dhacday, ayuu ku yiri qoraalkiisa Cumar Cabdirashiid, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. afartii xildhibaan ee ugu horeysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ku metelaya deegaanada maamulka Puntland ee shalay lagu doortay magaalada Garowe, ilaa iyo 5 kursi ay u tartamayaan 10 musharax ayaa doorashadoodu ay ahayd inay shalay ka dhacdo magaalada Garowe, hase yeeshee 4 qura ayaa lagu soo koobay oo sidaas ayaa doorashadu ku soo afmeeran. dhanka kale haddii aynu eegno saaxiibayaal, qodobka ugu dambeeya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gurceel Cabdishakuur Indha, taliyaha guutada 17aad ee Gorgor Gaashaale Dhexe Dayax Cabdi Cabdulle, iyo kusimaha guutada 15aad qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Axmed Dabeel, warbaahinta kula hadlayay magaalada Xudur, ayaa waxa uu sheegay in howlgallo qorsheysan oo si wadajir ay u fuliyeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug ay markaasi ku dileen qaar ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay ku soo qabteen gaadiid xilligaasi ay wateen ciidamada Al-Shabaab. waxa ay xuseen sidoo kale howlgalkan in uu ka dhacay deegaano dhanka koonfureed ka dhaca magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. waxa ay intaasi ku sii dareen in gaariga markaasi ay wateen Al-Shabaab lagu waday qaar ka tirsan ciidamada Al-Shabaab oo xiraa xilligaasi jaakooyinka markaasi lagu xiray qaraxyada. ugu dambeystii waxa ay u mahadceliyeen ciidamada iyo saraakiisha howlgalkaasi fuliya, iyaga oo kusii booriyay in ay ku dhiiradaan dagaalada markaasi laga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulkaasi Galmudug. xilligan wararkii oo aad ka daawanayseen bartaan ku leenahay YouTube-ka janalka xulka wararka saaxiibayaal, waanaga inta haddii ay tahay markaad ugu horeyso aad soo booqatay fadlan muuqaalkan subscribe si ay kuu soo galaan muuqaalada xiisaha badan ee halkaan mar walba aan soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. waa inoo kulan dambe iyo muuqaalkan mid lamid ah berito haddii ay beeraha nabadgelyo.